السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له شرفك أيها المستبدن وصاحب كان إسماعيل ديري waxaan dib u milicsan doonaa barnaamijkeeni Revit Architecture cashirkiisii tobanaad. maanta waxaan ku qaadan doonaa floor Revit oo ah sida guriga iyo dhismaha floorkiisa u sameey lahayd. marka qaabab badan ayaa loo sameeyaa. insha Allah waa wada arki doonaa most of them intooda ugu muhiimsan. kusoo dhawo cashirka. design-kan horaan usoo sameynay, ridaan kusoo darnay, furniture aan soo yeelnay, waxaan kale kusoo darnay kitchen design-kan aan soo sameynay. waxaan u sheegayaa qof walbo jecel inuu si fiican u fahmo cashirka hadda aan sharxayno, inuu kuwii hore dib u daawado si fiican uu soo fahmo. waxaan hore u sameynay Windows-ka sida dareemaysa 2D-ga markaad joogto. Windows-kan waa laga arkayaa 2D-ga, balse store-kan iyo musqushaan kuwii aan gelinay lama arko. laakiin markaad 3D-ga istaajiso waa kuwan waa arkaysaa. soo ma jeedid ku sugtaa siro jikada qaybta yarta ah oo store-ka iyo musqushaan waa kuwan daaqadahoodii, balse 2D-ga laguma arko. marka fikir yar ayaan ka hormarnayna cashirka kale intaan bilaabin. qaybtana ujeedo daaqadihii waa ku jiraan waatana, marka kor saarto way muuqanayaan. soo ma jeedid sidaad waxaad sameynaysaa. wuxuu leeyahay wax la yiraahdo view range. view range-ga tagaysaa, view range-gan baa ku dhufanaysaa. wuxuu leeyahay Revit-ka wax loo yaqaano cut plan macnaheedu waxay tahay markaad 2D-ga ku fiirinayso construction-ka waxaa la sameeyaa daaqadaha place-ka mitir 20 ayuu ka goynayaa, mitir 20 ayuu ka jarayaa, wax ka koreeya waa la tuurayaa. marka meeshaas waxaad sameynaysaa cut plan-kan mitir 20 maadaama daaqadahaas ka koreeyaan oo sill height-kooda aan mitir 30 ka dhignay si aad u aragto. mitir 20 kan waxaa gaarsiisaa mitir 50. okay dheh, you see si automatic ah u aragti waa kuwa soo baxay. marka view range-ga waa muhiim. okay waxaan sii gelaynaa marka cashirkeena floor-ka sameynayna. marka hal mar aan tagno east-ga. sida ujeedaan gurigeena wuxuu ka bilowday level 1 soo ku joogay level 2. hoos waxaan ka soo taganay 45 cm. qofkii levelka iyo qaabkiisa rabo cashirka levelkan kusoo sameyn dib u taawado tagtaa level 1 ama foundation daarto. kadib floor-kan sameynayna. marka waxaad tagaysaa architect. floor-ka dhowr qaab u sameyn doonaa. qaybta koowaad ayaan hadda ku bilaabeynaa. floor aad tagaysaa, waxaad tagaysaa architect, meesha floor ku qoran ku dhufo. intaadan shaqada bilaabin edit type dhaho, duplicate. halkan waxaa ku qorataa floor iska qoro oo ah 45 cm. okay dheh, edit type bartaan 0.15 ku qoran tahay ka dhigtaa 0.45. then waxaa leedahay okay. halkii marka aad joogto shaqada intaada bilaabin tool-kan oo qaybta darowga ah oo modify ku jira lagu siiyay. haddaad leen qaadato waxaad sameyn kartaa corner-ka click siinaysaa adoon bahalka kaliya muuska riixaya ayaa corner-ka kale click siinaysaa, corner-ka kale click siinaysaa, corner-ka kale click. saasaa marka by line-ka loogu wadaa waa ku wada wareejinaya. marka
taas waa la sameeyaa, laakiin waxaa jirto qaab kale oo aad uga fudud. waxaad samayn kartaa, waxaad soo qaadan kartaa big wallkan ayaa ku dhusanaysaa. big wallka markaa ku dhusato, sida guryaha foundationka loo sameeyo, waxaa jirta 5 senti oo gaziira oo guriga kasoo baxsan. halkaana gelinaya offsetkaas 0.05 offset ayaa gelinaysaa. big wall ku wadataa, wax kale ma samaynaysid. haddaa gudaha soo gelisa, fiiri gudaha haddaa soo geliso xariijinta gudaha ka muuqanaya, banaanka haddaa geysana banaanka ka muuqanaya. marka banaankaas wuxuu ku haya ayaa kelig la siinay keliya. dhinacan kale imo kelig, inta imo kelig. then waxaan leedahay okay 3D ahaan u fiiri. you see hoosu naga aaday. koodii hore ayay ahayd inaan foundationka aan kusoo set garayno, laakiin uma baahnid. calaamadda move ka hamla isticmaalaysa here to here sinaf. okay foundationkaaga saasaa ku samaysan kartaa. is so easy, mid aad iyo aad u fudud. okay lacala sidoo kale haddaa jeclaato inaad edit garayso falorkaaga, waxaa samaynaysaa wax weyn maahan. waxaad intaaga bedeli kartaa falorka ayaa kor tegaysa, edit oo ku dhufanaysa, kadib edit boundary ayaa ku dhufanaysa. foundationka noo celi, intaanaan kusoo daraynaa. kanoo kalaa kelig dhehe waa iska tiri, keligaa dhehe waa iska tiri, kani kanaan isku xiraynaa. waxaa qaadanaysaa trim extend, kelig here check, automatic waa isku xirnay. okay dheh, bal aan istaajino. see wax weyn ma inaan edit garaysa. marka saasaa loo edit garayaa. haddaad doonto intaadan dhexdaadan qayb ka mid ah aan duleelinaynaa. haddaad doonto halkaan aan duleel gelinaynaa, duleel halkaas gelinaynaa. asaa kor dhufanaysa, edit boundary aad leedahay. kan haddaa rabto duleelinaya, soo qaadataa rectangle-ka, isku shaanaan duleelinaynaa. okay aad leedahay. waa ujeedaa waa maqan tahay. haddaa istaajisana sidoo kale arkay inay maqan tahay. okay waa maqan tahay. control z try asoo laabto martin. control z try meeshaad hore ku laabanaysaa. qaybta labaadna bal aydan aan samayno. okay qaybtiisa labaadna foundationka waa fiirinaynaa. kan hore ayaan samaynay oo naga tiri, kan dalid naga dhig. dalid markaa tiraahdo derbigeenan foundationkan gaarsiinaynaa. marka derbigaana foundationka gaarsiinaynaa. calaamadaas qabo, hoos soo jiid, halkaas gey. intaas markaa samaysadeen calaamadda waxaa soo qaadanaysaa match property. kan igu ekaysiye leh waa wax weyn maaha. kana kan ku dhufanay waa lagugu ekaysiye, hoosaa loo jiiday. kaas yarkaa la ekaysiye, kan la ekaysiye. ilaahay kuugu samadiiday waa kala gaaban yihiin soo ma jeedi. kanna hoosii geey, foundationka gaarsii waa gaarsiisay, kanna gaarsii. okay intaas markaa samayso, waxaa samaynaysaa hal xabo ka mida kelig dheh. waxaa ku dhufataa basic wallkaas. waxaa soo qaadataa qaybtaas ugu horeeya ugu hooseysa oo ah wallkaas kusoo dhuso. markaa ku dhuso guduhu naga aaday,
calaamadda space ka taabo si aad banaanka ugu aragtid balse sidaan u baahnayn weli maahan ku kor dhufanaysaa edit type duplicate halkaa waxaa nooga dhigtaa my wall okay dheh edit type meeshaan horta ka zero wall pregan studkan matal studka waa naga bedel waxaa nooga dhigtaa generic model oo 200 ah generic wallkaas caadiga ah 200 nooga dhig kan ku dhufaa isagana waxaa nooga dhigtaa masonry wall caadiga oo 225 millimeter ama 300 nooga dhig kaas waxaa yar muuqanaa haddii saan ku ahayn oo saan kugu soo baxo wayna samaysanaysid preview kaliya leh marka wallkaagi waa ujeedaa foundationkaagi waa kana wallkaagi caadigaana waa kana at the center ku taagan yahay waxaa kaloo samayn kartaa meeshan 0.9 ka height-ka foundationkaaga waxaa ka dhigtaa 0.45 ka dhig intaas markaa samayso kan haddaad doonto waxaa samayn kartaa cornerka gudaha derbigaaga waa ku tiri kartaa si gazir 10 cm ah hesho haddaad doontana centerkiisa u dhaafa kartaa si aad ugu tirtid waxaa samaynaysaa kan maadaama uu yahay 200 kan hoosena 300 uu yahay maxaa haysataa 10 balkii 5 garab iyo 5 garab halkaana imaanaysaa offset-kana tirtiraysaa 0.05 inta markaa samayso okay leedahay you see gudu u sikadaa sagaran marka dan waxaa leedahay okay soo ma aragtid gazirkaas yar oo banaanka ayuu ku siiyey dan wax kale ma samaynaysid mid walba saana ka dhigana marka inta wareega hal mar ma select gare soo bixi my wallkaas aan markii diyaarinay click balse gudaha naga wada galeen ku dhufo space wada taabo ama inta level 1 tagto or even foundation if you need kanoo kale flat ku dhufo ujeedaa gazirka yaa gudaha naga soo jira oo ku dhufanay wallka flaaraha ku dhufanay banaanka ku tagaya kan ivan waa jooga okay qaybta labaadna sidaasna u habeyn kartaa waa kaasaa foundationkeygii gazirka yaraa banaanka usoo baxayana u sameynay so easy bada laakiin waxa uu leeyahay hal caqabad taasoo ah stiil inuu gudaha iska furan yahay gudahana waa ka xireynaa floor cadaa isticmaalaysa you make it for work floor soo qaado halkaas diitaan kasoo dhan 0.5 ka 0 ka dhig markaan gazir looma baahna tag click meeshaan kor hadda waa saddex siisan yahay waxaa samaynaysaa laba extend isku xir kan kale isku xir isku xiran ma ka yeelayo
dalkaas meel naga furan aan isku dayeynaa inaan xirno fiirsiya waa diidayaa continue ku dhufo haysta okay geeskaas wax yar ku dhufo hoos ayuu naga aaday move soo dhehe gudihiisina waa naga xiran yahay halkaas waxaa kugu dhammaaday hoolka foundationka qaybtiisa labaad okay cashirkan intaas ayuu ku yahay foundationkana sidaas ayaan ku dhaafnay hada billahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh